tillaabada uu qaaday dalka Ruushka oo uu ku xoojinaya Suuriya waa mid niyad jab iyo warwar aan la soo koobi karin ku xambaaraysa dalalka Israa'iil iyo Ameerika oo saaxiibo dhow ah. Israa'iil oo ah saaxiibka ugu dhow Mareykanka waxaa haatan soo wajahaya cabsi iyo warwar cusub taas oo la xiriirta arrimaha militariga ee Bariga Dhexe, waxaana sabab u noqonaysa arrinta xuduudda sii kordhaysa ee Xisbullah oo sheegtay in ay haatan hanatay gantaalo cusub oo ay kula dagaalami karto dalka Israa'iil. Iran oo fursado cusub helaysa iyo Suuriya oo soo laabanaysa, dhammaan tillaabooyinka ayaa khatar ku ah jiritaanka iyo awoodda Israa'iil. Arrinka ugu culus ee haatan warwarka sii xoojinaya waa arrinka la xiriira gantaalka S-300 oo haatan la guddoonsiinayo dalka Suuriya ayna farsameeyeen Ruushka. Haddaba gantaalka S-300 waxaa lagu farsameeyay dalka Ruushka waxaana dhismihiisu soo maray marxalado kala gedisan iyada oo la bilaabay 1967. Gantaalkani waxa uu ahaan ka tirsan yahay bahda gantaalaha balbalaaran ee saamka. Gantaalka S-300 waxa uu sitaa xirmooyin kala duwan oo militari oo isugu jira raadeero casri ah, tashuush uu hawada ku furayo, shiishkiisa oo aad u saxan marka uu bartilmaameedsanayo diyaaradaha ama gantaalaha soo gala hawadaasi, kuwaas oo ku wajahaya masaafo ka fog 250 kilomitir ugu yaraan. Saaruuqa S-300 oo ka mid ah gantaalaha ugu casrisan caalamka, kuwaas oo ay xambaaraan gaadiid aad u xoog badan, ayaa la geynayaa dalka Suuriya. Gantaalahan ayaa sahlaya in Israa'iil iyo Ameerika ay ka caagaan hawada dalka Suuriya. Gantaalahan oo loo adeegsan doono xitaa difaaca dhinaca badda Mediterranean-ka, taasoo lagu furi doono tashuush sida uu amar ku bixiyay madaxweynaha dalka Ruushka iyo wasiirka difaaca. Tillaabada ay qaadeen dalka Ruushku waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay caalamku aad u eegayaan dalka Mareykanka, ayna sii baahayso kala fogaanshaha Mareykanka iyo dunida inteeda kale, taasoo ku qotonta tillaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha dalka Mareykanka. Gantaalka S-300 waxa uu bedelayaa dhammaan wajahada siyaasadda caalamka ee ku wajahan Bariga Dhexe.